اوكي سؤاشا geeskeena Afrika maanta xayna haystaan jawaabtu waxay soo baxday waxayna haystoon malaha u curyansanahay qofkeena mushkiladuba ma armiye qofkeena tahay waxayna haystiba armiye qofkeena tahay okay waxay ugu soo dhacday marka bal qofkiina cidiina ha loo fiirsado aniga marka Djibouti joogaanta dambe inta badan Djibouti Ethiopia Hargeysa Somaliland waa dadku waa muunad kaliya لكن waxaan ku hor qabsaday Djibouti waa les nouvelles lettres dans le contexte djiboutien national djiboutien wadanka magacaale ayaanu fiirsaday dadka jooga qof aan caadi ahayn baa soo baxay qof inagu cusub oo martiya oo isticmaalka ka hor aan jirin isticmaalka la bilowday ilaa maanta la jira xillina dhamaan doona aniga qofkaas ay soo baxay waxaan ku taariikheeyay qofkan wuxuu bilowday isticmaalkii buu la dhashay qofkani ka hor ma jireen ka hor aabba jirayo hooya jirayso hooyi haybad bay lahaydoo marwey ahaydoo xishood bay lahaydoo shaqay lahaydoo dadnimo ay lahaydoo ilmaheega waxay ku barbaarinaysay qiyam hooya runta sheeg hooya beenta waa xaaraan hooya deeqsinimo hooyada baa jiraysay gabadhii jiraysa gabadhaas ahayd aabihii jirayna wuxuu ahaa aabihii Soomaaliyeed ee fidinka gashanayay ilkiisa maalinkii 10 goor cadeynayay ilkiis wada cadaayeen ma aha qofkan ka barjeeyay sakharaamay ilkiis wada daateen ma odagii Soomaaliyeed saas uu ahaa oo wiilka cadaayo shan goor buu cadeynayay maalinkii weysada halka u taalo lugihiisa markuu meereeyo oo cagaha markuu meereeyo yaani cagiis waa nadiif waxa la maqli jiqiiq yaani uska jirka uu ka gooyay ma jirin نظافة مركز لجهاد الطهارة مركز لجهاد استعمار كهر قف كين مجري وحول بلو استعمار أنا قياس هو قياس يعني ولا يقول دي كرا قياس إلى ما أنت نقف كاسو جرا وسعدا وحنا ضمانة يا وحنا هاي استعمال كودا ماذو ظروف تان كجرا مال كودا ماذو قف كان ضمانة يا أنا كتاب وحنا كبلا أبي أرارتي مقدمة مركز لقيته وحنا كبلا أبي de inaan qofkan dadka u soo dhaweeyo qofka nolosha ma laga arkara Djibouti hadaan tago Dirdaba hadaan tago Jigjiga hadaan tago Hargeysa hadaan tago ama Xamar hadaan tago ama Nairobi qofkan socda suuqa ma ka arki kara hawaad ka arki kartaa sidoo qofkani u eegyahay inaan soo dhaweeyaan isku day inaan soo dhaweeyo ayaan isku day aniga markaa 8 tusaalaan isticmaalay si aan qofka u soo dhaweeyo tusaalayaal 8 aniga waxaan ku jiraa cariiri baan ku jiraa عريدنا معلومات كتاب كان له ورقي حقوق درامية وحنو دحيا ولا لا سوماليات والرباب الصومالي وحكوا آخرين ولا لا عنفراد والرباب أفرسيس اللي وحكوا آخرين يدون نجنهي عنفراد لكم هذا شاف فرسيس tous les affaires ne parlent pas français mais aussi tous les somaliens ne parlent pas français Somali ودن فرسيس كم هذا عنفراد ودن فرسيس كم هذا ayaan daro dhibi waxa haysataa qofka lagu yiri umadaadii oo lagu meystay oo afka cid kale ay boobtay oo lagu dhagaroobay la hadal ama xuqor qofka la yiri baa runtii mashkilad baa taxqiiqiya walaalka canfarada wuxuu rabaa afarnaad kula hadasho laakiin aabii hooyadii af Soomaaliyeed kula hadasho aabii hooyadii af Soomaali Farsiis ma fahmayaan Farsiis dad ku hadasho aniga aabahay hooyadii Farsiis shaqo kuma loo ma fahmaan sanka la inaga galiyo wala inagu dirqiyay Faransiis baan ku hadalay waan ku celceliya waxaan ahay umada kaliye marka soo fadhacaynkaas la isku yimaado waxa la isweydiinaya maxaan ku hadalaa ma afari misaaf Soomaali misaaf Carabi isku dhishkaada joogtiin mushkilo kuma shir baa la qabanayaa waxa mushkilada saafka lagu wada hadlaya ma sifini laakiin inaga talo afkee lagu hadli baan isweydiinaynayo isticmaar baa inagu dhagaroobo dhagar baa nagu dhacday marka waaqica maxaan ku wada hadalaa aniga kitaabka af Soomaali kuma qori karin waan ku qori karay oo af Soomaali waan isku eegagaba laakiin de mustawaha af Soomaaliga ku qori wuxuu iska noqon lahaa heer kitaab lagu qoro af Soomaaliga iyo qoraal kuma gaarsiisna oo xaqiiqo kasoo dadka qareeyadaan af Soomaaliga ku hadashay dadka ku xadiisi waa af Soomaali waa weyn dadka qaar oo anagu ma fahmina kaan qorbe qaar kood yiraahdo ya bimi gambaan joogno rag qaar baan ku war kitaabka la turjumo
in la turjumo u baahan yaho waan turjumaynaa bay adigu waa turjum bay ku yidhahdeen waad karaysaa adiga af soomaaligii wadaadadii waaweynaa ku hadle aniga laakiin uma haysto af soomaali markaa ku qori kari waaye oo heerkii mustawihii af soomaaligii qoraalka gelayay laafka wax lagu qorayo kan lagu hadlay labay kala yihiin kaama hayo xilli bay iga qaadan lahayd afkii aniga ii sahlanaan ku qori karaya afkaa faransiisku ahaa murti dee walaalaha canfareed baariya faransiis baan ku hadalay oo canfar tiro badan iyo soomaali tiro badan iyo carab tiro badan baan hayn fadhiga caynkanaa magaalada baariya faransiis baan ku dhamaysanay laakiin birmingham iyo london dee faransiis baa laga guuriyey af soomaali baan ku dhamaysanay markaa deed waxay soo baxdo bal meel walba duruuftuna oo say waxay yihiin un dhe saasay soo baxday dadka qaarradee raalli bay yihiin qaarkoodna waxoogaa way ka rahaysanayaan dee dadkiina lama wada raalli gelin karo marka cod si gaar ahoo walaalaha qaarna waxaan rabaa inaan si gaara ula sheekaysto kitaabka haddii la tarjumi karo walaalahayo af soomaali haddii lagu tarjumi karo dhalinyar reer hargeysaan la hadlo hargeysa wax tarjumtaa oo fiican hadda hargeysa waxaa ka socdaa mashruuc fikri oo xaraka fikriya dhaqdhaqaaq ku saabsan xagga fikirka war soomaaliha lagala hadlo garaadka lagala hadlo xoog badan baa socota waan la hadlo waxaan ku yidhi kitaabka tarjumaadii ka warma waxay igu yidhahdeen annagu waxaan haynaa af soomaali guuriyo oo af ingiriis loo guuriyo ama af ingiriis laga guuriyo af soomaali loo guuriyo waan karaa laakiin faransiisa laga raro af soomaaliha laga raro af faransiis ma hayna idhahay haddaad adigu dee hargeysina la joogaysid bilo ood nagu akhriyeysid annaguna aan tarjumayno waa meel kale markaa qofkani xilligaasuu bilowday xilligaan uu dhammaanaya ani qofkaas ay soo baxay marka meelaha qaar baaban ka sheegay aniga markaa waxaan sameeyey dee jabuuti baan joogaa yar iyo weynba waan la joogaa dadka waan iskala sheekaystaa masaajid makhaayad koofi cayaar orod dad tiro badan baan saaxiib waan la joogaa intaba uu fiirsaday aniga markaa waxaan mariyey iskaankii caafimaadka ayaan mariyey wuxuun baa soo baxay uun qofka radiologa mutakhasiska ee raadioga dee qofka iskaan markuu saaro maxaa laga sugayaa un rapport un médecin un radiologue doit rédiger un rapport par après il fait passer quelqu'un le scanner il faut qu'il fasse un rapport rapportka wuxuu ku sheegaya waa diagnostic qofkani muxuu qabaa waxan les médecins posent un diagnostic aniga markaan mariyey iskaan qofkaan sheegayo iskaankii rapport baan ka sameeyey rapportkii kitaabku waa 10 cutub marka laga tago hordhaca iyo gunaanadka marka laga tago kitaabkaasi 10 cutub buu ka kooban yahay 8 cutub oo ugu horeeyay waa rapportkii iskaanka waa rapportkii iskaankaayo qofkii iskaankaa markaan mariyey 8 cutub waa qofka iskaanka wixii ka soo baxay waxaan buu qabaa cutubka 9aad dee qofkan sidana maxaa sidan ugu wacan asbaabtii baan anigu ka dhigay faransiis waa les raisons qui ont fait naître ces nouvelles êtres quelles sont les raisons ou les causes qui ont fait naître ces nouvelles êtres qofkan cusub inuu sidaa noqdo maxaa dhaliyo asbaabtu maxay tahay cutubka 10aadna dawo ma jirtaayo qofkan ma la daweyn karaa qofkan rajo ma leeyahay aniga markaa waxay soo baxday rajo leeyahay kitaabka 10 cutub waa 242 bog buu kitaabku ka kooban yahay 242 bog fikirku de ilaa muddo igu bislaa laakiin kitaabka intaan qoray sanad bay ahayd sanad maalmaha qaar 12 saacadood qor maalmaha qaar 10 saacadood maalmaha qaar 5 saacadood maalmaha qaar 2 saacadood hadba sidaad waqti u hesho kitaabka waxaan aniga ku laabtay oon macnaha aniga afkaar baan soo qaaday afkaartii baan ku dabaqay qofkaan idiin sheegayo ilaa 45 kitaab baan u akhriyey kitaabkan macnaha waxaad leedahay aniga waxay soo baxday qofkan inuu saayey oo sidaayey dee marka qaar markhaati baa loo baahan yaho sidan aad sheegtay adduunka cidima kula aragtay amaama lagula qabaa 45 kitaab baa kitaabka xagga dambe ku yaalo afka faransiiska waxaa la yidhahdaa la bibliographie macnaha markhaati cilmiya maxaad haysaa marka waxaan soo minguuriyey aqwaashii ama hadaladii 45 kitaab aan ka helo ii markhaati furaysa
sacabka ay tumayso igu le waa runtaa waa runtaa waa runtaa idinku waa beentiin idinkaa idinka sugaya laakiin de anigu waxaan leeyahay sidan maan qabaa oo qofkani waa sidan waxaana markhaatiye hebel iyo hebel iyo heblaayo oo kitaabka iyo kitaabka